maanta halkan waxaa nooga soo idlaaday shir noo furmay 5 bisha noona soo xirmay maanta shirkaas wuxuu ku bilowday guddi heer sare ah oo ka kooban dawladda Soomaaliya iyo dawladda Itoobiya shirkaas sidaad boorka ka arkaysaanba wuxuu ahaa shirkii ugu horeeyay labada dawladood Soomaaliya iyo Itoobiya ay si ministerial level ah guddi ah ay ku yeeshaan shirkaas maanta waxaa noo soo gabagabeeyay oo noo soo xiray ra'iisul wasaare ku-xigeenka dawladda federaalka Soomaaliya mudane Saalax Axmed Jaamac iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dawladda Itoobiya sidoo kalena ah wasiirka arrimaha dibadda dawladda Itoobiya His Excellency Demeke Mekonnen shirkan maanta waxaa lagu saxiixay laba waxyaabood kan koowaad oo lagu saxiixay waxa waaye heshiis ganacsi oo u dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo dawladda Itoobiya sidoo kale waxaa la saxiixay minute agreement ama wada xaajoodkii siyaasadeed ee maanta halkan ku soo idlaaday ayaa la wada saxiixday runtii waxaan rajaynaynaa ganacsatada Soomaaliyeed in ay ka faa'iidi doonaan 150 milyan dawladda Itoobiya oo haysata shacab aad u badan sidoo kalena alaabo ganacsi product badan oo dawladda Soomaaliya ay leedahay ay loo iibgey doono dawladda Itoobiya ama dadka Itoobiya degan runtii waxyaabaha anaga hadda fursadaha noo qaaliga oo aan leenahay waxa kamid ah kalluunkeena oo baddaas aad u weyn 3,000 kilomitir ka sii badan ah in productiga laga soo saaro ama waxa loo yaqaano seafoodka loo iibgey doono dalkaas Itoobiya loo iibgey doono marka shirkaas wuxuu ku saabsanaa intaas ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab kood nambarka xidig 1 eber 1 4 gees